xidiga kooxda Chelsea ee lagu magacaabo Eden Hazard ayaa xaqiijiyay riyadiisa kaga aadan in uu ciyaaro naadiga aadka u weyn ee cid waliba ay ku riyooto ee Real Madrid wuxuuna uu ku tilmaamay in ay tahay kooxda ugu fiican adduunka hadalkani ka soo yeeray 27 jirkan reer Belgium ayaa wuxuu imaanayaa kadib markii guul weyn ay ka gaareen Southampton toddobaadkii 8aad ee horyaalka ugu xiisaha badan dunida ee Premier League Eden Hazard oo ka soo hormuuqday saxaafadda ayaa waxa la weydiiyay dareenkiisa ku aadan in wali uu xiisaynayo kooxda Los Blancos waxaana uu yiri Real Madrid waa kooxda ugu fiican adduunka ma doonayo in aan been sheego waxaan jeclahay in aan rumeeyo riyadii igu dhaxnoolay tan iyo carruurnimadayda ayuu yiri Eden Hazard si kastaba ha ahaatee Eden Hazard ayaa waxa uu ka mid yahay xidigaha sida weyn loola xiriirinayo naadiga Real Madrid tan iyo xilli ciyaareedkii hore inkastoo ay ku guul daraysatay in ay soo xirigelayso